أرضيا قلت واسدي ليس واسدار أرتيو أكتوى بركي. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. فصلك لو يطبناد فون فور مادة كيمستري دكتور كينا كواد waxaan kaga hadli doonaa hydrocarbons waxaan ka hadlaynaa maanta wax la yiraahdo hydrocarbon fasalkii koob iyo tobnaad chemistry waxaan ku soo qaadateen cashirkii ugu dambeeyay wax la yiraahdo introduction to organic chemistry hadafka chapterka ugu dambeeyay loogu bixiyay fasalka koob iyo tobnaad wuxuu ahaa in ardayga asagu faham ka haysta waxa la yiraahdo organic chemistry u soo gudbo fasalka 12aad si fasalka 12aad casharada ugu badan ee looga hadli doono waxyaabo la xiriira organic matter ardaygu u fahmo asagoo fahamka ka haystana u soo gudbo fasalka 12aad ayuu hadafkeeda ahaa maanta waxaan ku bilaaban doonaa chapterkeena koowaad waxa la yiraahdo hydrocarbons hydrocarbon maxaa la yiraahdaa hydrocarbonka iyo organic chemistry-ga maxaa ka dhaxeeya hydrocarbons ma organic chemistry ba mise waa inorganic chemistry waxyaabaha soo idil ayaan rabnaa inaan ku daraasayno chapterkan oo aan bilaabayno maanta inta aan ku jirno fasalkan waxaan qaadan doonaa chapterro badan kuwaas oo la xiriira galaaskeena organic chemistry base-kiisa marka la rabo in laga hadlo waxa base aan ka soo hadalnay carbon maanta waxaan noo qor anaga hydrocarbon wuxuu ka samaysan yahay si uu shaqeeya maxaa laga sameeyaa maxaa loo isticmaalaa waxa soo idil waxaan ku daraasin doonaa fasalkan okay objectives-ka laga leeyahay chapterka marka uu dhamaado chapterkan ardayga maxaa laga rabaa arday walba ee ka tirsan fasalka 12aad marka aan dhamayno chapterkan koowaad ee la yiraahdo hydrocarbon in uu yaqaano define and describe hydrocarbons hydrocarbon waxa la yiraahdaa saa wax ah waxaan lagu cadeyn karaa inaad keentid tusayaal iyo daliilo cadcad oo aad ku sheegi kartid sheyga inuu yahay hydrocarbon marka aad sheegtid qeexdid waxa la yiraahdaa hydrocarbon haddana hydrocarbons kuma yihiin qolyo qaybsama haddii ay yihiin qolyo qaybsama qaybi hydrocarbons kadana classification tasniif u samee able hydrocarbonsku marka aad ableynaysid tusaale waxa tiri waxaan loo qaybiyaa hebel iyo hebel iyo hebel waa ina cadeysaa haddana sababta aad u qaybisay waa ina cadeysaa sama ilaa markii laga hadlayo xayawaanadu waxa la yiraahdaa vertebrate iyo invertebrate waxa la yiraahdaa laf dhabar ay leeyihiin qolana ma laha laf dhabartu waa wax cadeynaya in shaygan uu qayb yahay mar haddii marka aad sameynaysid classification oo hydrocarbon waa inaad taqaanaa sababta lafteedu aad u tiri shaygan waa nooca in base aad hayso marka arday walba ee dhigta fasalka 12aad marka aan dhamayno chapterkan inuu yaqaano farqiga dhismaheedka u dhaxeeya alkenes alkynes and aromatics waa qaadan doonaa waana ka soo hadalnayba cashirkii fasalka 12aad cashirkii ugu dambeeyay ee iskuul aad ku qaadataan oo macalinka iskuul ku soo sheegay introduction to organic chemistry in ay ku jireen wax la yiraahdo alkenes wax la yiraahdo alkenes iyo wax la yiraahdo alkynes ay ku jireen aromatic hadda ay kugu cusub yahay sheeyadan way kala duwan yihiin haddana waxay ka tirsan yihiin hydrocarbons sida aan dareemayno in arday walba ay dhigta fasalka 12aad uu yaqaano habka ay ku kala duwan yihiin frame ahaan ama structure ahaan alkeneska iyo alkyneska marka asmaynayna kala duwanaansho dhanka structuralka haddana waa inaan naqaanaa shay loo qorayaa alkeneska qaabkee loo qoraa structure ahaan alkeneska structure ahaan see loo qoraa alkyneska see loo qoraa aromatic hydrocarbon see loo qoraa waxaan ka soo hadalnay
fasalka kooyo tobnaad cashirkii chapterkii ugu dambeeyay lagu soo bartay chapterkii la yiraahdo Introduction to Organic Chemistry waxaa kamid ahaa structure-ada qaabka loo qoro displayed miya condensed miya molecular formula waxaasoo idil waxaad ku soo barateen sanadkii aad soo dhaafteen sanadkan cusub maadaama aad gelaysaan form 4 chapterkiisa koowaad hydrocarbon wuxuu relate leeyahay chapterkii ugu dambeeyay ee fasalka aad ka soo gudubteen ee 11aad marka qodobka xiga in ardaygu uu yaqaan haddana marka aan dhameeyay chapterkan propertieska hydrocarbons way kala duwan yihiin propertieska astaamaha loo yaqaan hydrocarbonska maadaama alkene alkyne aromatic aan ka soo hadlayno to idil laftoodu waxaa kala duwan astaamaha iyo sifooyinka ay leeyihiin in ardaygu uu yaqaano correlation ka dhaxeeya propertieska iyo farqiga ka dhaxeeya propertieska ay leeyihiin hydrocarbonska arday walba ee fadhiya fasalka marka aan dhameeyno chapterkan inuu yaqaano waxa la yiraahdo isomer qoraan kaga soo hadalnay oo waxaan kaga soo hadalnay fasalkii la soo dhaafay marka isomer hydrocarbonsne in ardaygu yaqaano waxa la yiraahdo maxay ka sameeyeen maxay yihiin in arday walba ka tirsan ardaygan uu yaqaano sida loo diyaariyo hydrocarbons in formula hadii aad heshid aad ku diyaari kartid hydrocarbonska aad cadeysid hydrocarbonska qaabkeeda loo diyaariyaa muxuu yahay waxa ugu dambeeyay ee aan rabnay haddana inaan ka ogaano markaan dhameeyno chapterkan arday walba ee dhigta fasalka 12aad inuu yaqaano hydrocarbonska maanta ka sheekeynayna maxaa loo isticmaalaa maadaama shayga aan naqaan hydrocarbonsku waa sida haddana waa inaan naqaanaa shayga aan baranay ee aan waqti ku bixinay ee aan waqti qaadanay inaan naqaano waxa loo isticmaalo marka chapterka koowaad xoogiisa waxaa looga hadli doonaa waxa la yiraahdo hydrocarbons waayahay lesson 1 marka cashirkeena koowaad waxaan kaga hadlaynaa marka introduction waxaan go'aali ka sameynaynaa waxa la yiraahdo hydrocarbons hydrocarbon shayga la yiraahdo ayaa waxaan u sameynaynaa go'aaliga muxuu yahay muxuu ka samaysan yahay maxaa tusaalooyin kamid ah annaga guryaheena ma yaalan sheeye ka samaysan hydrocarbon ma isticmaalna ilaa chemistry ma ka kala jirnay wax walba chemical ah tusaalooyin waxaan ka heli jirnay waxa annaga aan isticmaalna oo daily use ka ama home base ka oo kale waxyaabaha marka hydrocarbonska ma jira shay annaga aan naqaano oo aan garan karno ee ka tirsan hydrocarbonska waxaan ku bilaabaynaa horta activity waxqabadaan ku bilaabaynaa waxqabadkan waxaan rabnaa inuu noo fududeeyo habka ugu macquulsan ee ardayga faham looga siin karo waxa la yiraahdaa hydrocarbons sida aan hore kaga soo hadalnay organic chemistry iyo hydrocarbon correlation waaye maxay marka waxaan fiirinaynaa sawirada noo socdaan fiirinaynaa sawir walba ee noo imaadane waxaan ka raadinaynaa sawiradu shayada ah organic substance shayga asal ka yimid noole ayaan waxaan leenahay kan waa organic kan waxa waa inorganic oo something like that kadib waxaan ka niqaashaynaa oo aan kala hadlaynaa organic substance-ga bartamiska nala jooga ama dadkan ugu hareeraysan okay hadda labadan shay midna waa cusbo midna waa sokor labadooda ayaa organic ah shay origin noolaha ma jira shay aan noole ahayn ma jira oo asalkii noolaha ka iman salt waxay ka samaysan tahay yiraahdo inorganic that activity waxay in aad xalisid laakiin maadaama uu yahay activity ugu horeeyay ana ku xalinayo kan inorganic waa cusbada laakiin sokortu waxay ka samaysan tahay organic matter waxay ka timaadaa qasabka sama waxay ka samaysan tahay yiraahdo sucrose oo ka tirsan organic matter oo biochemical ah qaybtan fiiri maize waa galeydii kana waa water labadan shay ya organic ah ya organic ahayn marka maize waa galey organic matter weeyaan shay
origin noola ah laakiin water inorganic waay maxaa waaye inorganic laakiin maize waxay noqonaysaa organic marka yaana wixigo labadan tusaale haddana tomato yaanyada ma asalkeeda noolaa hadda ma noolo shaygiigu geedka waa laga soo jara soma ha ayadna waxaan leenahay organic matter laakiin rocks quruurux ama dhagax waxaan leenahay waa in organic okay waa inaan arday uu kala yaqaanaa shaygan originally wuxuu ka yimid noole iyo shaygan asalkii noole kama imaan waxaan tusaale soo qaadanaa marka hore cusbo iyo sokor way kala duwan yihiin haddana waan isticmaalnaa oo daily use weeyaan cusbada waxay ka timid sida badan shay inorganiga sodium chloride potassium chloride or something like that sokorta laakiin waxaan nahnay ayadu waxay ka timaadaa qasabka qasab muxuu yahay marka waa organic substance sama marka asalkeedu maadaama ay ka timid qasab ayada waxaan leenahay organic galleydu waxaan leenahay organic biyihiina waa inorganic yaayadu waxaan leenahay organic dhagaxna waxaan leenahay inorganic activity labaad marka wax qabadka labaad isna wuxuu ka hadlayaa kor waxay ahayd sama shayaan ka hadlayna oo sawir cada tookada waxaan soo bandhigaynaa compounds oo chemical compound ayaan keenaynaa chemical compoundka qaarkood waa organic qaar kalena waxa waaye inorganic in arday uu kala yaqaano marka kee organica kee inorganica sawirku aad fiiri waxaan fiirinayaa compoundska kuwaana kan organic ah intaan waxaan ka siinaa tig inorganic waxaan ka siinaa tig type of element in xagan qorinaa marka nooc origa uu yahay okay kan waxaa la yiraahdaa acetic acid waxa waaye acidka sida badan ku jira liinta iyo khalka iyo wax nooca wuxuu qorayaa marka CH3COH iyo inta oo sidaan marka organic matter waa marka sulfuric acid horta waxaan hore kaga soo hadalnay oo jabtarkii ugu dambeeyay ee fasalka 11 lagu soo hadlay shay hadduu carbon base u yahay waa organic samahayn carbon ma ku jiro oo base ah waa may automatic waxaan leenahay sulfuric acid marka waa inorganic calcium chloride ayana waxaan leenahay inorganic maxaan ku base garanaynaa carbon ma lahan oo base ah laakiin isku dhiskaan fiiri isku dhiskaan waxaa la yiraahdaa tetrachloride acetaldehyde oo wuxuu u qormaa ayadana waxaan u qoraynaa tan acid waxaa la yiraahdaa chlorine carbon chlorine kale carbon hydrogen carbonkaas laba dabar oxygen ku xigta marka waxaa la yiraahdaa marka tetrachloride acetaldehyde waxaan ku tagi doonaa chapterka labaad waxa la yiraahdaa aldehyde uu ka tirsan yahay organic matter marka sodium sulfate wax malahan oo carbon ah ayaan haleyna inorganic marka kadib meesha waxa ku qoraysaa type curiyaha nooc uu yahay waxaa leedahay carbon nooc kuwa non metal dhamaantood non metal calcium ka wuxuu ka yahay metal chlorine non metal noqonaa kuwa non metal kana sodium metal noqonaa kuwa kale waxay noqonayaan non metal marka qaabka ayaad uga shaqeynaysaa cashirkaaga koowaad hydrocarbon maxaa la yiraahdaa marka hydrocarbon waxaan leenahay isku dhis walba ee ka samaysan carbon iyo hydrogen waxaad sama isku dhis walba ee ka samaysan hydrogen iyo carbon maxaa la yiraahdaa hydrocarbon maxaa tusaale loo soo qaatay propane alkene alkyne ayay kala tirsan yihiin kan waxaa la yiraahdaa propane kan waxaa la yiraahdaa propene kan waxaa la yiraahdaa propane hydrocarboniska sida caadiga waxaa loo isticmaalaa shidaalka shumaca guryaha lagu shito oolyada gasoline waa basiinka caadiga ee baabuurta isticmaalaan liquid propane LP gaaskan waxa waaye gaaska suujinada ah ee sida badan
loo isticmaalo shoolada ama wax lagu alxamo natural gas ka caadiga ah waxyaabahaas oo idil waxaan leenahay waxay ka samaysan yihiin hydrocarbons marka waxay ka samaysan yihiin hydrocarbons waxaa kaloo ka samaysan sheeye kale oo maxaa ka mid ah laga sameeyaa ka waxay ka samaysan yihiin kan wax laga sameeyo waxaa laga diyaarin karaa fabrics soap dye cosmetics and drug plastics and rubber dharka saabuunta waxay noocyada kala duwan oo ma haday tahay haday saabuunta labaduba dyes rinjiyada ama waxyaabaha wax guri loo qurxiyo cosmeticska drugska plasticska waxyaabaha oo caagadaha iyo rubberka waxyaabaha goomaha iyo plastic soo gala elastic soo gala waxa weeye elastic soo gala exercise maxaa la yiraahdaa hydrocarbon saddex shay oo loo isticmaalo hydrocarbon sheeg saddex shay hydrocarbon uu ka samaysan sheeg oo shay hydrocarbons ah cashirkeeni maanta kaasoo aan kaga hadlaynay barashada hydrocarbonska xagga ayuu ku egyahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ardayay aqoontu waa sidii ilays waa sida aroortiyo ogta waa barkee